weligay allahay qofkan xiriir sameynay oo isku xumaani kuma soo laaban jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican inanta waxaan walaalahayn uma hayaan waa gartay balka waxaan soo fuulay in cadabkeeda ka raadsado iyada intimi way sharfan tahay gabadhan wanaagooda joogna weeye wanaag baan kala tagnay laakiin hadda waxaan rabaa qof kale oo nolol kale la wadaago waad mahadsan tahay su'aasha koowaad aan ku weydiiyay hadaytu waxay ahayd maslaxad diyaar ma u tahay jawaabtaaduna waxay ahayd haa hadda labada qof markay saraabaydo fiiri waxaa jiro mararka qaar xanaaqa wuxuu ku dhaafiyaa sakano ama daqiiqado caracad caraysan tahay baa waxay ku dhaafisaa waxaad wanaag oo xaqaad u lahayd inta carada ka soo degtid meesha tani waxaa yaallo gabar walaashaaye oo xiriirida dhex maray oo aad jeclaatay qalbigaaguna adigaa lahaa shalay markaad jeclaanaysay gabadhii waa ku hor joogtaa yacni qofka waxaa la rabaa inuu miisaamo xilligaa la taagan yahay siduu uga bixin lahaa hadda adiga amar waaqaca ku hor yaallo amrigaas waaqaca ku hor yaallana wuxuu yahay gabadhii aad jecleed jaashaday kula saaran tahay 5,200 qof ku daawanayso walaalle wax hadda maanta aniga aan dhihi karo cadnaan waxaas weyn uu tabanayaa ayuu guurkii uu damcay uu u baabi'inaya ma u jeedi marka walaalle arrinta tani aan soo afjarnay gabadhana wakhtigeeda qaaligeedna siisay naciima khayr allah ka siiye hore aan uga soconnay maxaa tabanaysaa abdiweli aan ma hadli karaa abbaay waa kuu soo noqonaya nutella aniga waxaan kaa rabaa waxa aad tabanayso cadnaan ay kugu kalifay inaad hadalkaa dhahdo inaad aragto wax weeye social media haddii dee aan wax sheesho wax laga yaabaa in way siciliyaa mootintii raganimo maya waxa uu fiiri adigoo hadalkaaga miisaamayo oo miisaan saarayo muhiimadii labada qof ilaahay arladan wuxuu u ballaariyay in labada isku fahmi waayo ay kala maraan hadda haddii iyada aan luuq wax kaga dhamaysan kar luuqaan u geli lahaa qolka naciimaanimi waxay calafkayga labaad cuganayaa calafkayga ayaa mar labaad cuganayaa baan idhin adeer marka dee waxa way qolka waxaan u joogaan caawa calafkayga mar labaad cugto daayar labaad noqon kari maayo marka anigu ina adeer dhankayga inantaa waxaan walaaltinimo hayn uma hayo naciimaay haddaad naagi u darayso ood leedahay wiilkaa waxa weeye inan kale aan ku ogaanaya waa sideeda diyaar baanu ahay laakiin xiriir maliga xumaaday mar labaad kuma soo laabto waa mahadsan tahay hadalkaagu waa hadal cad balse midaan caddayn ninka raggaa waxaa la rabaa walaalkeeyow markii uu go'aan gaarayo wuu sababeeyaa hadda nutella cid adigana laguguma qasbaayo ayaduna adiga laguguma qasbaayo adigana ayada laguma qasbaayo meesha tani waxaa yaallo dad islaam ahaan nahay maslaxaan raadinayna maslaxadda aan raadinayna waxay tahay qofka markuu ka hadlo waxa uu tabanayo then fiiri ayadoo gabar ah oo yacni markaan leeyahay gabar farnacayba kuma aanan fiiqin ayadoo gabaraha waxay garatay inay tiraahdo aniga maslaxaan diyaar u ahay waxa aan tabanayo hadduu iga daayo waa hadlaysaa nutella waa hadlaysaa abba anigu kuma dhihin maslaxaan diyaar u ahay waxaan ku idhi ninkaas xalo u dambayso xitaa ay soo qaraacay ani ma rabo mana doonayo haddana meesha waa isugu nimaano waa iskula kulano anigu inuu isagu saaran yahay iyo inta kale meesha waa ku jira requestiga ma fahantay okay dhegeysta marka adigana waa ku fahmay asagana waa fahmay meesha hadalka uu dhimanaya waxay tahay fiiriya anaa labadiina runta idii sheegaya marka
labadiina meesha tani waxa yaalla hadda waxa waaye waxa la yiraahdo kibriyaa mahmaha jirto labada qofood hadday samada isla aadaan ay buur is saaraan waa dareemaya social media ku jirtiin camera furan qof kastaba madaxu dhulka ka cishanaya labadiina waa israbtaa runta idin sheega adigana waad rabtaa asagana waa ku rabaa laakiin asna ani ma rabo